munaasabad kooban oo habeenkii xalay lagu qabtay xarunta shaqaalaha dawladda ee magaalada Hargeysa ayaa ahayd mid loogu urinayay lacago si loo furo dugsigii wax lagu bari jiray dadka aragga naafada ka waxaana soo qaban qaabiyay munaasabadani ururka ay ku bahoobeen dadka aragga naafada ka ee Soobo oo kaashanaya ururada dhalinyarada Somaliland ee Soonyo iyo sidoo kale wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee Somaliland waxaana kala soo qayb galay wasiirka wasaaradda shaqagelinta Somaliland gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda iyo marti sharaf aad u tiro badan waxaana ugu horeyn munaasabadaasi ka hadlay qaar ka tirsan dadka aragga naafada ka oo sheegay inay u baahan yihiin in bulshada Somaliland ay garab istaagaan hadii qalbigeenu qoyan yahay oo inuu qalbigeena ilaahu qalbiga hayna qallajire inuu qalbigeenu uu qoyan yahay qiiro idikuma yara jeebka gacanta hal la geliyo waa sadaqatul jaariya waa jidka la dhiso masaajidka la dhiso barkada la qodo weeye dugsiga caawa loo istaagaya aad iyo aad bay u mahadsan yihiin dadkii lacagta qiimaha badan leh ku dhawaaqay runtii aniga magacaygu waa Adna Maxamed Cali waxaan ahay gabadh aragga ka naafada ah sidaas oo tahay habeen isma oran waxba ka maqan waxaan ku dadaalayaa inaan noqdo qof heer ka gaadha nolosha horta la yaab bay tahay qof ilaahay lixdiisi alxamdulillah oo haddana ilaahda intuu meel fadhiisto shaqo la'aan baa jirta anigu waxaan aaminsanahay wadankeena inaanay shaqo la'aan ka jirin balse ay ka jirto ma shaqaystayaal marka runtii waxaan aaminsanahay qofka bini'aadamka horta inuu qaban karo waxa qeyrkii qaban karaba inaad aaminin inaad waxa qaban karto saddex arrimood iska ilow adduunka intaad ku nooshahay arrinta waxaan doonayaa inaad aad u xasuusnaataan intiina halkan fadhida iyo inta runtii shaashadaha inaga daawanaysaa saddex arrimood iska ilow meel iska dhig noloshaada ay meel la ka soo gelin shayga la yiraahdo cabashada meel iska dhig shayga la yiraahdo calaacalka meel iska dhig haddii wax ku soo maran inaad ka calaacasho halkaas iska dhig shalay way ku dhaafto shayga la yiraahdo cudurdaarka waxaas haddaan qaban lahaa waxaasan hayn halkaas iska dhig saddexda arrimood ba iska ilow just you can do marka wad qaban kartaa waxa doonto geestiisa isna waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Sharmaarka Geelle waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in la garab istaago dadka aragga naafada ka ilaahay nacaska iyo doqonka ma imtixaamo waayo wuxuu og yahay inaanu ka soo baxay ilaahay wuxuu imtixaama oo adduunyada dusheeda tusaale ka dhigaa cidda karaysa ee ka soo bixi karaysa in imtixaankaasi laga qaadi karo waxaan idinku hambalyeeynayaa in ilaahay subxaanahu wa ta'ala dadka ay idin doortay aakhiro iyo ifna إلهي سبحانه وتعالى هيدي كدر جيو آخرنا سمر كأد كصبرتين إن أرجين إلهي يحبنا كل شيء كمدا أو قاضي إن إلهي سبحانه وتعالى يدين كبدلو حساب يران يحوش يران إنه جنوين كيس أو قصر ريا إذن كأرساقه. وحجبجبدي مناسبة داسيكا على إسلام مركزنا سوق جبجبيي وزير كوزارة الشغالين تعرمها بالشدة يقويس كسوماليلاند مروهند حرسي شابع. كور قلنا يا جمال ومدهر سوماليلاند mid wax yar haysta iyo mid wax badan haystaba mas'uul qaran iyo mas'uul shakhsiba dadku waa wada mas'uul in aynu si toos ah uga wada qayb qaadano dhisitaanka iskuulka indhoolayaasha kaas oo aan runtii oran karayo wuxuu ka daboolayaa qaranka wax badan oo loo baahan yahay waayo waad aragtaan ilaahay khayr xasanaad siiyo ay shaqooyinka ay soo bandhigeen iyo sida ay u shaqeynayaan ee mucjisada ah sida darteed waxaan ummadayda ka codsanayaa in loo istaago xamse cilmi telefishinka caalamiga ah ee Universal Hargeysa